aynu ku sacab ku soo dhaweynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبيرنا وحنا نسكن حلفة قالقة إنه أدقنا مدحوينا نعذو موسى وحنا نسقط عليه. حلك الغوري هو عليها إلهي وحنا كاجبي كي هذي برواقه صاريا إلهي كاجبه أو تك يتك بأي كل شيء زيو. وأمة عادية إلهي كاجبه أيام كل الناس هكذا وحنا وحفلة النصر أبولد والله يا حنبلي هكذا وحنا بدريا ولكن إذا جعلها عبد الله محمد رابله وأنا كنا تاكله وأنا كي جرب كنزيه عبد الله وحنا ولا حنبلي نارو حنبلي عبد الله قول ما يزتينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maamarada aad bay mahadsan tahay. waxa kale oo aan isxasuusinaynaa xafladda halkan aan isugu nimi waxa weeye taageerada musharaxa madaxweynaha iminka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo aad u hambalyeynayna waxa kale oo qabanaa ma jirto kaliya waanu ducaynaynaa. waxaan halkan uga yeerayaa iminkana gudoomiyaha garabka dhalinyarada xaafadda Cabaye mudane Farxaan Carab Xasan Saacad diiran ku soo dhaweeno. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومهله إله سوكا كهني هكذا قرح البلان له أينو وهم بريء إنه مدحوينه إنه عصوبة جمهورية الصومالية مدن موسى بيحي عبدي أيام هذا السكله. أنت كدب حفلته وحينو مترقل إنه وهم بريء إنه مدحوينه عصوبة جمهورية الصومالية مدن موسى بيحي عبدي وأينو لنا هاي إلهي حلكا واحد أبدا إلهي كل قرب كيدل كيسان فعنا إلهي كارديو. أنت كدب هتينو حافظ عبالين هاي موسى بيحي تاجردي سمينا كالهارين أو إذا كموا لويدين سيد يقول طبناين إنه تاجرني ما تنوي تاجرنا يسمون مدحوينه وحين نكرر تشيننا سينو تاجرنا إنه يسمون حافظنا وحقوقته ودوين كنا ضيعان وذرتين لا ميدين وذرتين وحين نكرر تشيننا مدحوينها عصوبة جمهورية الصومالية إنه ودويك إنه كقعد لنا سينو وهلين إنه فرتنا وصلنا سنو ودويك إنه ورث هدو الله وتعالى وحكوا إنه أباهنا إنه موسى بيحي وحوقته بيلعنت بحسنا حافظنا كترته ولو تهين حافظنا عباية بيها حافظوا واحد كله تان شرير أنت بالديا دكتان قارنا واحد كم إيران توشكا marka waxaan rajaynaynaa haddii Allah u diro Muuse saynu furteen ugu soo saarnayno inaguna naga dhigo kuwa tusho ku meedha haddii Allah u diro marka waxba kulay waqtigu waa iska gabagabo xafladdu dib ay nooga dhacday wax hadal badan oran maayo laakiin waxaan leeyahay mudane madaxweyne siday dadku kuugu heelanaayeen waa inay wixii ay kuugu heelanaayeen ilaa sabi ilaa waayeen ay u lahaayeen aabo muuse وأنا كاهل مدى الله ودلوقا خير بانكم رجلنا وأنا نكون دعينا إلى الحلقة كل قرقوته والسلام عليكم ورحمة الله. runtii waxaan marag madoona oo halkan aan ka cadeynaya xaafadda Cabaye soo saarista xisbiga Kulmiye inaynan u kala harin weyn ogeyn ololihii sida ay qayb qaateen weyn ogeyn dabaaldegii maalintii doorashada lagu dhawaaqay hal iyo habeenba hooyooyinka iyo dhalinyarada xaafadda Cabaye waa ay u heelanayeen xisbiga Kulmiye iminkana isagoo madaxweyne noqday way u heelanaan doonaa. waxa kale aan ka sii socdo waxaanu soo dhaweyn doonaa si wada jira qolo qurba joog ah oo xafladda inoo martiya aynu soo dhaweyno amran bila cali aynu soo dhaweyno. waxaan salaamayaa inamada aan ku faano ee dhalinyarada ah iyo haweenka qaaliga ah ee xaafadayada Cabaye. xaafadii maalintii u horeysay aan ka bilaabeen ku faraxsanahay wixii ay qabatay taariikhda way qoran tahay xaafadda Cabaye. madaalayaasha masraxdayaashii madaalayaashii caawana raba inay hambaliyo diraan ilaahayna ugu mahadnaqaan ilaahay hawshii ay u diyaarka ahaayeen ay
وسيحن وين وهرقلي الحمد لله رب العالمين تعبيني مو قصار إلهي نقول شو ينسيه صوماها ما حاولين إلهي ما هاد نقنو ما أنتنا أينود عين مدحوينهما قالقا يعني كل يلا رجع عليه إلهي حل كساره مسبيحي عبدي سو مدو عينه إلهي نحكا كو أستره إلهي نحكا كو أستره ومدحوينه قلما ما أنت إنه هقامي قرنك مركا إلهي يملدين إنه هرقليي إذن كل واحد تهين مدالياشي هوانكي iyo dhalinyaradii xaafada aan ku faano ee aan ku soo barbaaray ee aan yacni aad u jecelahay wadagtiino meel kale ma tago raayna idinkan la deganahay xaafad kale ima marto waan cabayahay wada aniga caruurtaydii baa kale hooyo meeshii laga yaqaanay baan doonaa inaan deganaano oo kula guriga ayaan baan joogaynaa marka Cabaye taariikhday gashay wixii ay qabatay waa loogi meelihii mucaaradada ugu adkayd ee la islaha maalintii codka halla ataago laakiin ka guuleystay baatii Soomaha soo ilaahay nimcadii iyo guushiina moosiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu musabbixin noqdo dhalinyarada quruxda badan ee aan ogahay halgankii ay galeen iyo haweenka aan ogahay siday ugu heegnaayeen kii ay mahadiyeen in ilaahay ka dhigo ilaahay kay mahadiyaan ka dhigo سؤالي لأنا ربي كي ما هتسين الهاي كديجو موسى أنا قين بدن بنك كرنا يا وحن لا هاي فرتيني ما أنت فائدة كوه هلي دونتان فرتيني فائدة نقول دونا موسى وحويان أنا وحن إلى هذا سمتبحي أنا بحي لا هيدن كي سمتبحين معها عبارها وكلية يو عدوبة لكن وحويا إن شاء الله تعالى وحويا كي كسبت بحين لهذا اللي يرداسي وحاي تبانيان قف كستنا إلهي سبحانه وتعالى موسى وحن لي إلهي هوا فشيو إنه التيم لا شقية وما أنت كمل دليل وسوق بتين لكن إلهي وين واحدة أيا وحويا ندين فدولي كوشينا ينسيه ما هذا هو ينسيهم بيدور علينا إذا كنا دليل ما إذا كبرهم بليد ريال دليل وحلا يدين ما هذا مقايح لا شكر على الواجب واجب كيني ما بدين يسين سو معها فرتها موسى وبه ينسين الله نويد اللقبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أمرا بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله مكوبا بس إله ما تسكله دليرتي ذي حافظة يدمركي أردم بعد ما نهاك كودا تري إله ما تسكله هذا سبوك هاي كانه موسى نملحوينه ناقدك فرتنا نقول لنا ما شاء الله مركبوا عبدي الجديد يوم بعد الحين كعبد الرحمن سيلعي هذه إلهي وحنقول رجينا إن شاء الله مدحوينها صوص عليه إن شاء الله ينقدر مدحوينها اعتراف إنه لا ودك نبت قلية يوحنا كل أماكن جيسو مير والبسوق إن شاء الله الأسبوع كان إن شاء الله شنطة دبي لهي كوكارسيو اعتراف ودن كيسو ولا دليرتيسو ودن كيسو مير كلياتا أنا حمال لقيت بني ما نقول رجينا إن شاء الله قولي برواقو marka waarsana waxaan mahadin celinaya dhalinyarta xaafada aad soo abaabulay xafladan caawa xasan waraw cad isaguna gudoomiye xaafada aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdilaahi rooble isaguna aad buu mahadsan yahay in umar wageed isaguna aad iyo aad buu mahadsan qaba qaabinta xaflada aad iyo aad buu mahadsan yihiin wad salaaminta mas-uuliyiintu way noo dambeyn doontaa waxaan ku soconayaa xagga dhalinyarada waxaan u yeerayaa xubin ka mid ah dhalinyarada xagga inamada ah waxa weeye abwaan weyn abwaan cabdiqaadir ismaaciil cabdi falyatafadal ku soo dhawaad abwaan xikmo waad mahadsantihiin waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan iskugu timi haweenka dhalinyarada madaxda iyo marti sharafta kale ee nagala soo qayb qashay xafladan quruxda badan ee caawa ilaahay isugu keenay mahadi ha ka gaadhay marka labaad
waxaan aad u salaamayaa iyaguna dhalinyarada aad iskuga hawlay ee waqtigoodii siiyey sidii ay u abaabuli lahaayeen xafladan aynu caawa joogno ee quruxda badan. waxaan leeyahay kolley hadalka badin maayo, laakiinse waxaan dardaaran yar farayaa dhalinyarada xaafadda Cabaye ee isku laabta xaadhan leh, ee ficilka wanaagsan leh, ee sida fiican meel uga soo wada jeeda, kuwaasoo leh hadaf insha allahu tacaala ay ka midho dhalin doonaan waqtiyada soo socda haddii ilaahay idhaahdo. waxaan leeyahay dhalinyarada isku duubnaada, halkaa ka sii wada hadafkiina. waynu gaadhnay ujeeddadii aynu ka lahayn xisbigeenna, haddii ilaahayna mahadi ha ka gaadho. inta hadhayna waynu dhammaystiri doonnaa haddii ilaahay idhaahdo. mar walbana waxaynu la garab taagannahay hiil iyo hoo, sida aynu marka horeba dhiigga ugu shubaynay ayaynu ugu shubi doonnaa haddii ilaahay idhaahdo. kolley hadalka badin maayo, waxaan ku soo gabagabaynayaa isku duubnaada dhalinyarada xaafadda. sidaa aynu iskugu duubannahayna aynu iskugu duubnaano, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii ilaahay idhaahdo. intaasaan idin farayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa abwaanada daada yar ee u soo kacaya xaafadda, ilaahayna ha garab galo. runtii xaafadda Cabaye waxaan idiin sheegayaa, xaafadda Cabaye waxaa ka dhashay abwaano tiro badan oo uu hogaaminayo xaaji gujis, allah u naxariistee. waxaa kaloo xaafadda ku dhaqmay allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac gaariye. xasan ganaysna waa xaafadda Cabaye, allah u naxariistee. yuusuf qodban waa xaafadda Cabaye. axmed awgeedooyinkuna waa xaafadda Cabaye. markaa magaaladuba waxay dhegaysan jirtay berigii hore heeseeni, iminkana waxay noo soo kacaya cabdiqaadir iyo aan ka socdo. waxaa noogu xigsiinayaa abwaan maansoarkeen noogu soo jeedin doona cabdixakiim. falyatafadal ku soo dhowow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي هلا بوردي فربنا وي جوجان هذين نقطة أبوانتي هذين نقطة عيارتويدي بل إنتان ما سمعتي هلا بلابن واحد دوني حوجينا ندكير بسليم سحفلة لو ورح بدنات واحد اللي واحد عضي من بعد قبل يسلا كفتمه markuu gabadhiisa la gaftay wuxuu ku yiri alla qaali daawus baatahay oo waxaan ku yiri balaya ka dhacday teena magaasay ku tiri war daawus leeyahay geeyaan ah geeyo maasuu ku yiri qaal muhiimadu waa inaad xayawaan u tahay marka kulligeen kii ka codeeyay iyo kii uu codeeyaba muhiimadu waxaynu qasanoo inuu madaxweynaha yahay Muuse kaftana iga yar ahaatee berigoodaan uu xagga wadani baan ahaa war waa soo diga rogtay habeenadii ugu dambeysay تينا هذا الناس كلهم بالعيا موت كان الناس كيانا كطلب الناس تبدأ واحد سويتين يعني أبتيجي يوم ما قبل كل واحد لكن قبل يقول ما قبتر أبتيجي لكن أحسن بلادير كاحد جاي يريح حقه يسوي وحبا ورن معي هدول مركا أنا أقول برامي ما استدي بقى واحد نده يسوي بالله يرهد لي يوم واحد يبها كل وقت كلا جرنا إنسان مشاهد مركا لو جرهده يا مركا لو جرهده يعني دبلوماس أما نسافرت فردية ده لبدو دوبات كلا جرنا كريس marka maasada waxaan ku bilaabaya anigoo la hadlaya adeer rade waxaan idhaa adeer ku gadaayo ma adeer geedisahan ma tagin geeyigana kama tarin garashana lama adiba waa intuu safaaradda joogaa kasiin doona mooye gulufkiiyo colaadda gaatiya haraadka gadka garta geed kuma tarin galbataya ismaad odhan geeyigana xoreeyo guudka saare calanko
gorgorkiyo abeeskuba guudka kaama cuninoo go-a tuurismaad odhan guudka saare calankoo geesinima kumay gelin sida muuse oo kale afarta adlada maaso aragtida giraantayda iyo geedi socodkeeda golahani ka sheege gareexaad miyaan galay golihiina tumarow alla ilaahay miyaan galay gareexaad miyaan galay kolle tixda gabayntaasay gaga eekayd warway qiiranay ka keentay iyo shucuur ahaan waan intaa u kula taliyey maalmihii ugu dambeysay aan dardaaran u dirayey xertaa waddan iyo reer tolkay waxaana ku lahaa nabadda haddaad maqashaan nabadda ummadda oo dhan way wada deeqdaa laakiin kursigu dee laba xisbi ma wada deeqo kii xaqa u lahaa baana ku fadhiya dalkaana u baahnaa muuse maantana wuu ku fadhiya run ahaantii maanta uma baahna muuse in hees loo tiriyo uma baahna maanta in la yidhaahdo codka aynu siino balse shayga keliya maanta u baahan yahay waxa weeye waa keligii ruucadaan fara badan baa looga soo horeeyey siyaasadda curdin buu u yahay ama ugu buu u yahay kursigu maanta ku fadhiya shacab kasta ama dhalin kasta oo xaafadda ku nool Cabaye waxaynu inagu inooga baahan inaynu la garab istaagno wada shaqayn joogtaa amnigeena qaybteena ka ilaashano iyo inagoo xisbiga kula xisaabtana waxyaalihii uu inoo soo bandhigay uguna codaynay kuna dooranay hadafkeennii haddaynu nahay xaafadda Cabaye ducaanna guudka ka surayna waxaanu la leenahay galbatay halkii roob daftarkiisa abwaanka daada yar intaa inagu qosliyeyna aad ayaa ugu mahadsan baan u baahannahay iminkana waxaan ku yeeri doonaa xaggii mas-uuliyadaan u kacaye maxamed daahir axmed oo qurba jooga xafladeenanayno imi aadna aan uga mahad celinayno ku soo dhawow maxamed daahir sacabkaa loo timo بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدوينها شعنك إيا شالك إيا شعور تقرح بضله كبوقته وحسيقانا والسلام إياه للي يردن فقيا دمر بله dhammaantood ku abtirsadaa xaafadda gacan libaax gaar ahaan Cabaye waxaan runtii uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee ay hiil iyo hooba isula garab taageen xisbiga Kulmiye xaqiiqdiina ay ku hubsadaan kursiga madaxweynaha la doortay ee mudane muuse biixi cabdi runtii xaafadda Cabaye annagu markanu qurbaha joogno inamada ka yimaada iyo hablaha ka yimaadaaba waxay hormuud u yihiin dadka ay u yimaadaan magac laga maskiin maaha meel fog iyo meel dheer ayay xaafadda magaceedu gaadhay caawa waxaan hortiina u imi oo aan u halabsaday oo aan halkan soo istaagay mahadnaqa ballaaran ee markaanu ka daawano shaashadaha telefishinka na dhiirigeliya ee runtii aanu ku diirsanno iyo sidii quruxda badnayd ee ay uga qayb qaadateen ninkii la oran jiray cali sugulle oo xaafadda Cabaye runtii abti u ahayd intooda badan oo aad wada garanaysaan wuxuu yidhi diric kali ahaantii daleed guusha kama helo dadka geesu lagu yahay runtii dadka uu maanta madaxweynaha muuse ku noqday kow baa ka ahaydeen waana ku mahadsantihin nin kaloo isla reer Cabaye ahaabaa wuxuu yidhi dadka waxaad ogaataa maalintay u daran tahay ama uu dagaal jiro ama doorashada tahay ama deeqda jeebka iyo dunyadahoodu maran tahay maasha allah xaqiiqatan hambalyada maanta waxay nala qaybsanaya dhammaan jamhuuriyadda Somaliland
geed kasta iyo garoon kasta iyo geyi kasta iyo goob kasta ay ku sugan yihiin reer Somaliland farxadda mid ka codeeyay iyo mid codayayba guul inoo soo wada hoyatay weeye mid aynu gaar u leenahay maaha inaguse waxa aynu dadka dheernahay waxa weeyaan runtii halgankii iyo hadafkii aynu lahayn oo aynu ku guulaysanay oo idinku hormuud kow ka ahaydeen waa maxay xisbi waa maxay horta xisbinimadu waa maxay dad badan baa laga yaabaa inaanay xisbinimada fahansanayn xisbigu waa hadaf iyo himilo iyo higsi iyo ujeedo mideeya dad runtii kala qabiila oo kala gobol ah oo kala geed ah dabeeto Somaliland oo dhami gees ka gees waxay isku raacday maanta inay codkooda ku hubsadaan mujaahid Muuse Biixi Cabdi inuu dalkan madaxweyne ka noqdo haddaba maanta inagoo u siman oo aan xaq gaar ah ku lahayn oo ula siman reer jamhuuriyadda Somaliland oo dhan waxaanu haddii aanu nahay qurbajoogga reer Somaliland oo iyagu masaafada dheer u soo uga yimi inay Muuse ku hubsadaan kursiga idinkuna aad tihiin kuwii xaqiijiyey ee rumeeyey himiladayada 100 iyo 1,000 iyo 200 jeerba waxaanu idinka leenahay jazaaka allahu jazaa waa mahadsantihiin reer Cabaye waxaan intaa kaga baxayaa amran bileh oo runtii xaafadda caawan aniga halkan igu soo casuuntay ahayna guddoomiyaha garabka haweenka ee UK ahaan jirtay xisbigii kulmiye muddo dheer oo aan wada shaqaynay oo runtii markii uu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyi hadalka ku jiray inay koob ka ahayd waqtigaana ka mid ahayd guddida fulinta iminkana guddoomiyaha garabka haweenka waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay inay xaafadii Cabaayana halgankeedii ay halkii ka sii waday iyadoo halkaana ka waday waxaad leeyahay Cabayo dhalinyaroy hablow aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna waan idinku faraxsanahay inagu de waxa weeyaan mar haddaad guulaysato himiladaadu dhamowdo dadka kama sarraysida waad la simantahay reer wadanina waxaynu leenahay tu dambaynu lahaan hadduu taajiri dhaahdo idinkuna insha allah waqtigiina way heli doontaan waxaan idinkaga tagayaa in garba siman iyo gob iyo caadkeed ay noqotaan oo sidaa guusha mar walba hareerta u haysaan warbihiina aad ayaan u mahadsan yahay inaanu si ballaaran dabaaldegi hadday noqoto shakhsiyaad ahaan waxaan kaloonu hawlo badan ka gudubnay waxaa jira waqtiyo badan horta runaateen waxay farxadaa waxaan sameeyey fuudhiyo mararkii ay socdeen ololuhu inay fuudhiyo sameeyey jiray saxaaf fuudhiyo ku saabsan xisbiga kulmiye oo Muuse ha guulaystay runaatiin caawatiyo rumowday ayaan halkan uga hadlayaa waxaan mar labaad aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada xaafadda iyo dhammaan intii soo agaabushay in xafladan quruxda badan sidoo kale xasan waraabcade waa la badanyay waxaan idinku mahadcelinayaa in hablaha quruxda badan sida sharafta la inooga soo galay inaynu ka qayb galnay xafladan in hadalba waxaan ka xasuustaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu ku hadlay markii doorashada uu ku dhawaaqay runtii hadalkaas soo noqday hadal populationka ku nool adduunka meel kasta oo Soomaaliland ka joogan Yurub gudaheega America hadalkaas oo ah muu guulaysan xisbiga kulmiye ee waxa guulaystay dhalinyarada iyo ummadda reer Somaliland runtii waa hadal la soo jiitay oo nuu kalifay inaanu mahadnaq iyo duca uga dirno goobtan ballaaran mar labaad waxaan Ilaahay uga baryanaa waxa la yiraahdo horta ama waxba ma tarto waxaan ugu ducaynaa inuu Ilaahay ka dhigo kii xilka ku astura ee labada dhinacba Somaliland nabad gaarsiya horumarkiisa ka taliya runtii farxadda caawa halkan aan ku suganay intii nagala qayb gaashay iyo intii ka maqan ama intii waqtigu u saamixi waayo inay ka soo qayb gasho runtii aad baad mahadsantiin farxaddu waa quluubta mar walba waxaan ku faraxsanahay madaxweynaheena insha Allah shanta dambe soo socdana waxaan rajaynayaa madaxweyne fiican imika la weerarkii nooga aad baad mahadsan aad ayaan u mahadsan yahay Idris Yara waxa kale aan halkan inala jooga nataliyaha madaxweynaha arrimaha saxaafadda ahaana maareeyay hore TV-ga qaranka Khadar Cali Gaas imika waxaan ku soo dhaweyn doonaa xasan
waraaba cadde oo runtii aan soo kalifnay isagoo xanuunsanaya inoo yimi ilaa 2000 markaan yareerayna na garab taagnaa haddaan nay dhalinyarta aad baan u xanuunsanay caawa iga raalli noqda waan joogi kari waaye laakiin sababtaa waxa weeye aad baan u qayliyaa ayaamaha waxaan doonayaa intaanan erey oo dhan dhallinyaradii isboortiga anu hees baan ku ololeynay hees aan anigu sameeyey aniga in ninkaan shalay soo dhaweeyey jaamac karaaciin labadaa beyd ka horeen anigu leeyahay oo ay qaadayso koox la yidhaha dayax heeska magaciisa waxaa la yidhaahdaa nin cadhooday laga badiyey siyaasaddana way gashaa ogaada ilaahu siyaasiga hadduu cadhooda waa laga badiyey heestu macno badan bay leedahay aad iyo aad baan waxaan u salaamayaa marti sharafta amran bila cali daahir khadar cali gaas iyo injineer xuseen oo dhinacayga fadhiya fawsiya maan arkayn raalliga noqda waxaan idin odhanayaa keliya maanta waxaan odhanayaa aniga waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha shanaad ee somalilan muuse biixi cabdi xaafadda Cabaye xogogaal baanu ahaa calamo badan looma keenin qalab badan looma keenin sameecadaha mar dambay soo gaadheen socodka madaxdu way ku yarayd haddana iyagaa iswaday ilaahay ka sakow iyagaa xoogooda iyo caqligooda iyagaa ku soo baxay Cabaye kaalin laba ilaa waanay ka qaateen doorashada maanta waana la og yahay madaxduna way idin og tahay madaxweynaha la doortay waxaan leeyahay markuu elected noqdo madaxweynuhu ee la doorto sida aad arkaysaan iminka gurigiisii dabadii ilaa gudihii dad baa buuxiyey macnuhu maxay tahay waxaan leeyahay madaxweyne nin gacanta la soo qabtay ama suldaan ha keeno ama shirkad ha keento nin la keeno la soo qabtay qaranka uma shaqeeyo qofka keenay buu u shaqeeyaa taa iga qora aniga qaranka uma shaqeynayo ee qofka keeno u shaqeynaya caqligaaga
iyo maskaxdaada iyo fakarkaaga 26 sano dalka adaa joogay waad kala garanaysaa muwaadiniinta adigu xulo aba 5 wasaaradood ka dhig aba 25 ka dhig adiga taladu ha ku joogto ilaahayna kula garab galo taasi waa tii dardaarankaygi madaxweynaha cusub dardaaranka kale waxa weeye innaga teena waxay nagu waajiba maanta calankii kulmiye calankii Soomaaliland baynu ku bedelay 3 wiig baynu calanka luleynay kulmiye maanta calankii Soomaaliland baynu dib u qaadanay Soomaaliland nimaduna dhiigeena inay ku jirto weeye taasa muhiim ah inaynu daacad kula shaqeyno inaan cid hadduu magacaabo iyo aynaan maskaxda gelin maxaan ugu jiri weynay maxaan uga muuqan weynay maxaan qarannimada ka weyn waxaan qabaa inuu dal dhisayo dadna dhisayo madaxweynaha aynu taageero aynu garab galno sidaas aynu isku ognahay haddii 5 walaalo la geeyo inaynu ku taageero oona dhinaca qabiilka aynan ka eegin Cabaye taas aynu ballanaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada oon ogahay xaafaddu inaanay garoomo lahayn garoonka waxa ugu dhow garoonka xawaadla ugu dhow haddana maalin lagama siiyo haddii la sii waayo birahay gooyaan waan ogahay waxaynu u baahannahay madaxweyne ku fakeraya dhalinyarada in la jiheeyo oo xagee loo jeeynaya siyaasadda in laga jeeyo haddaynu wada siyaasi noqonno dee ummadaasi socon mayso waxaynu u baahannahay in dhalinyarada shaqaabuur loo sameeyo waxaynu u baahannahay in caafimaad ku kordho waxaynu u baahannahay waxbarashada in la tayeeyo waxaynu u baahannahay iskuul walba inuu garoon yeesho haddaynaan taa helin 5 sannadood inaynu biyo helno doorashada dambe haddii muuse lagu celinayo madaxweynuhu waxaan kula xisaabtamaynaa wuxuu u soo kordhiyay xaafadiina maad siday tahay waxa u soo kordha iyo qaranka waxa u soo kordha ayaynu ugu celin karnaa hadduu la yimaado muuse waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysto intaan soo sheegay insha Allah taala aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa dadaalkiina hooyooyinka waan la socday goortaad soo bixi jirteen habeenkii ciyaarta badan ciyaarayseen dadaalkiina gabdhaha wiilasha intaba ilaahay ay la garab galo waa dadaasheen jasaakum Allahu khayran mar walba wuu yiraahdaa anoo ka wakiila ma ihi anigu raali noqda inaka iga horeeyay wuxuu yidhi sacaadatu wasiir ma ihi anigu wasiir ma ihi wasiirkeenu wuu joogaa marka taa ogaada intaa waa saxaya waxaan ku soo maaray hore TV-ga imikana ah la taliyaha madaxweynaha xagga arrimaha saxaafadda Khalid Cali Gaas Bismillahir Rahmanir Rahiim haweenka dhalinyarada garabka haweenka mas'uuliyiintooda ee qurba joogga injineer Xuseen oo ka tirsan golaha dhexe xisbiga iyo caruurta dhalinyarada haweenka aqoon-yahanada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dadweyne munaasabadan loogu dabaaldegayo guusha xisbiga kulmiye ka soo hooyay doorashadii ka qabsoontay jamhuuriyadda Soomaaliland 13 November runtii guushaasi xisbigu keenay waa mid u soo hooyatay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waayo waxaynu garan karnaa saamaynta iyo ay ku yeelatay caalamka doorashada sida nabadgelyada la iyo free and fair election ka dhacay dalkeenu sumcadda uu soo hooyay dalkeena waxa laga garan karaa oo laga daalacan karaa baraha bulshadu ku kulmaan iyo media internationalki waxyaabuhu ka qoray dadka reer Soomaaliland waxa lagu amaanay xukuumadda iyo shacbiga sida nabadgelyada leh doorashadaasi uga qabsoontay marka loo eego wadamada dariskeena ee wari dhibaatadu ka taagan tahay sida Kenya oo kale oo doorashadii maanta loo dhaarinayay maxkamadda sare la keenayay madaxweynihii waxaan u ducaynaynaa madaxweynaheena shanaad mudane Muuse Biixi Cabdi inuu ilaahay xilka mas'uuliyadda maanta kortay Muuse
mas-uuliyaddaasi waxa weeyaan mas-uuliyad aad u culus oo ilaahay kala xisaabtami doono markaa waxaan idinka codsanayaa inaad ugu ducaysaan inuu ilaahay u fududeeyo oo inaan innaguna hawsha halkaa kaga tegin kaga cadhoonin haddaynu boos ka weyno laakiin aynu ku garab istaagno go'aamo adag buu leeyahay muuse biixi cabdi ayaynu ku doorannay go'aamadaa adag inaynu ku dhiirigelinno inuu qaato ayaynu diyaar u nahay ilaahay waxaanu uga rajaynaynaa haddii aan la yidhaa inuu ilaahay xilka ku asturo uu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisaba wax badan u taro taariikhda hore u galay inuu dalkan u xoreeyey wax badanna u qabtay waayo muuse biixi horaa loo tijaabiyey waxyaabaha somalilan ku faanto maanta waxaa ka mida hubka dhigistii iyo dowladdii marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal wakhtigiisii waxyaabihii faraha badnaayoo arrimaha gudaha ka qabtay waxaa ugu muhiimsanaa in maleeshiyaadkii waddanka kala qoqobay laga ururiyo oo la aasaasay kuwa ilaaliya kuwa door muhiima ayuu ku lahaa madaxweynaha shanaad ee maanta somalilan loo doortay ilaahay waxaanu uga rajaynaynaa inuu ilaahay xilkaa u fududeeyo madaxweynuhu wuxuu haystaa kalsoonida shacbiga somalilan wuxuu noqday madaxweynihii codkii ugu tirada badnaa lagu soo doorto ee somalilan doorato waxaynu ognahay daahir riyaale in 80 cod lagu kala sarreeyey madaxweyne siiraanyo waxaa lagu doortay boqolkiiba 49 baa doortay muuse biixi cabdi madaxweyne muuse biixi cabdi maanta boqolkiiba 55 baa doortay marka mandate-kaasuu haystaa maanta muuse ilaahay xilkaa ku asturo hadalka waan soo koobayaa intii soo qaban qaabisay iyo intii gacan ka geysatayba aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa assalaamu calaykum iminkana waxaan ku soo dhoweyn doonaa guddoomiyaha garibka haweenka ee Sweden ee xisbiga kulmiye soo dhowow marwo faadumo salaanta islaamka ilaah raxmaankay mahad u sugnaatay rabbiga guushayna siiyey ee isu keenay iyo warra mahadnaq leh ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa guushayna siiyey kuwii hanta allah inaga dhigo guusha allah inaga dhigo madaxweynaheennana allah ha guuleeyo rabbigay ha ku gacan siiyo allah u gargaaro xaqana allah ha waafajiyo waa xil adag waa hawl culus ilaahay waxaan weydiisanaynaa rabbigay inuu sidii cumar bin khadaab allah ka yeelo uu go'aankii cumar bin khadaab qaato oo uu ku guulaysto intaa haddaan salaanta kaga baxo halka waxaan uga mahadnaqayaa dadweynaha reer Cabaye ee dumar iyo carruurba leh dhalinyarada firfircoon ee si wanaagsan hawshoodii xilkoodii u gutay caawanay sabaabulay ee yimid xafladda sameeyey hambalaya diraya aad baan idin hambalyeynaya aad baan idin salaamaya oo wax inoo soo kordhay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu gaarsiiyo guusha midhaheeda bismillaahi kariim intii noolaata salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaafadda Cabaye ha noolaato ilaahay kora ka yeelo war heeskii ugu celi